barasabka gobolka Maroodijeex Maxamed Maxamuud Jeeniyare oo weheliyo kusimaha maayirka caasimadda Hargeysa ahna maayir ku-xigeenka Cabdicasiis Cagaweyne iyo mas'uuliyiin kale oo maanta si wada jir ah ula hadlay telefishinka caalamiga ee Samsad ayaa ugu baaqay bulshada inay ilaaliyaan nabadgelyada xilli diyaargarow xoogan lagu jiro qabsoomidda tartanka gobolada Somaliland oo sanadkan martigelinayo gobolka Maroodijeex barasabka gobolka Maroodijeex Maxamed Maxamuud Jeeniyare oo ugu horeyn halkaasi ka hadlay ayaa bulshada gobolka iyo walibana ciyaartoyda gobolka fariin baaq xambaarsan u diray. Fariintan maanta gudbinayna waxa weeye ciyaariga goboladu waxay ka dhacayaan labada Juun bay ka bilaabayaan gobolka Maroodijeex. Qodobka koowaad dadka reer Maroodijeex waxaan faraynaa sidii fiicnayd oo nabadgelyada u ilaalin jireen oo ciidamada kala duwan ula shaqeynayeen inay u shaqeeyaan oo alleer la galo oo nabadgelyada la ilaaliyo. Qodobka labaad waxaan soo dhaweynaynaa ciyaartooyda ka imanaya gobolada dhan. waxaan leenahay soo dhawaada haddii aan la idmo ciyaartooyda gobolka Maroodijeex hore ugu guuleysan jirteen. waxaan idinku dhiirinaynaa anagoo idin garab taagan maamulkiina gobolka iyo kii degmadaba sidii fiicnayd ee aw xawaareyn jirteen oo goolasho u dhalin jirteen inaad u dhalisaan oo u diyaar garowdaan. kusimaha maayirka caasimadda Hargeysa Cabdicasiis Cagaweyne oo isna madashaasi ka hadlay ayaa ugu baaqay ganacsatada inay qayb weyn ka qaataan qabsoomidda tartanka gobolada iyo walibana martigelintiisa. alxamdulilaahi rabbil caalamiin inaynu xiriirkii gobolada qabanayno waxa jirta caasimaddan Hargeysa ee gobolka Maroodijeex waxa jira ganacsato fara badan oo ganacsatadaas oo aanu u yeeri doono guddi baanu samayn doonaa guddidaas ganacsatada u yeeri doonta waxay samayn doontaa oo diyaar garowgii waxa jira waxyaabo fara badan ganacsato badan oo ka warhayno oo lacagta Hargeysa ka helay lacagta Hargeysa ka heleen Hargeysa meherada waaweyn ku leeyihiin haddana gobollo ay asal ahaan ka soo jeedaan ayaa waxaad moodaa inay aad uga xaqliyaan inamadii markay noo soo warramaan waxay yiraahdaan ganacsatada noocaas anagu markaan u tagno ama aanu dii ciyaarno ama aanu gacan qabta waxay oranayaan anagu gobolkaas oo ka soo jeedno oo u dhalanay ayaanu wax siinaa waxaanu jecelahay ilaahay baa wixdiisiyay kuwa halkan wax ka hesheenna wax ka bixiya oo qaaraanka wax ku bixiya kuwa halka ka soo jeedaanna dee wax ku bixiya laakiin wallahi ilaahay dushiidiga eegaya Hargeysa oo maanta ka hesheen lacagta oo ku shaqaysataan hadda maanta tiraadaan waxba siimayna waxaanu siinaynaa gobolkaas oo ka soo jeednay Hargeysana way idinku xisaabtamay ilaahayna way idinku xisaabtamay waxaan ka codsanayaa inay taana wax siiyaan saanin godob nooga arag tarna ay wax siiyaan annaguna guddida baan u saari doonaa annaga iyo barasabka iyo guddideedana oo dhami xildhibaan Ismaaciil Cagayare iyo isuduwaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Maroodijeex oo iyaguna goobtaasi ka hadlay ayaa ugu baaqay bulshada inay qayb weyn ka qaataan ilaalinta iyo xoojinta nabadgelyada tartanka ciyaaraha gobolada Somaliland ay sanadkan martigelinaysa magaalada Hargeysa ee caasimadda kaasoo ay ka soo qayb gali doonaan 13 gobol ee ka kooban tahay Somaliland. Mukhtar Ismaaciil Ali, Samsad TV, Hargeysa.